dhamaan asxaabta ardada dhamaan inta ku tahan baxdan sabca jazeera channel waxaan leenahay soo dhawaada hadii aad ku cusub tahay subscribe saar hadaad hore u joogtayna waxaan leenahay soo dhawow insha Allah qaybtan waxaan ku qaadan doonaa insha Allah anagoo ku dhex jirnaa barashada Excel-ka waxaan sameynaynaa insha Allah formatting aan sameynaynaa page formatting iyo printing sidii aad u diyaar lahayd worksheet keena inaan printer gareyno insha Allah waxaan soo kicinayaa Excel. I will start Excel. Excel 2007 insha Allah. I start. Okay, Excel is starting. And Excel أنا سو كعي. Excel كان يسو كعي إن شاء الله وبلانك واي وحربا إن استعماله template. إن شاء الله install templates وليها Excel. حربا إن استعماله. ما دام هذا worksheet ديارسن أينو استعماله يد يوجد تمالهن. مركا مد ديارسن حربا إن استعماله Excel وليها ما كمبيوتر والبا Excel كوجرو أتكيه لكرتو. You go to Office button أما file أتجيسا. You go to new أكون فنيسا. And then new marka ku dhufato waxa ka dooranaysaa install template-yada markaas ku install gareysan waxa waxyaalo diyaarsan Excel-ka markaas uu wato ama Word haduu yahay kulli way leeyihiin office-yada insha Allah this waxaan qaadanaa marka aan rabaa sales report tan click ku siinaya this file I click create kana waa isoo furmay marka file-kan aan rabaa inaan formatting ku sameeyo formatting aan sameeyna ama printing marka sameeyna inaan rabo inaan sameeyo ama print gareeyo and for example I go to office button or file and then print markaan dhaho file-kayga wuxuu noqonayaa sidan kana I look at my preview this is my data marka waxay ka kooban tahay 6 page ka kooban tahay 1 page ay muuqdo I click on the next on the ribbon next markaan click ku sii next page then sana ay soo bixiso salaan hadda waxa iga maqan oo ugu horeerto meesha aan tabaay waxa waaye ciwaankii kore ama aan tabaaya tusaalahan ciwaankan kore oo ay ku qoran tahay product customer iyo quotas waa heading-kii waa column headinadii ay iga maqan headinadaas kore waxaan rabaa mar walba inay soo muuqdaan oo kala u baahanahay magaan printer gareeyo ama beebadeyda markay daabaco okay these are all next markaan dhaho saanay noqonaysaa mararka qaar waxa jirto inaad daatada qaar aad u baahato inaad kharisid ay ka soo bixin print out kaad inaysan noqon ka soo bixina u baahanaysaa waxyaalahaas oo dhan aan sameeynaa insha Allah formatting marka qaybahaas aan ku soo qaadanayna maanta page formatting keena waxa bedelaysaa marka hore waxa ugu fiican inaad tagto markaas adoo ka helayo printing marka dhahdo print by view marka tagto click on office button and then click on print falartan soo raacdo click ku siinin by view ku dhufo marka print by view marka dhahdo sidaan oo ku tusinaya ribbonka waxa ii yaalo show margins this show margins waxa uu siinaya dhibcahan oo isaaraya show marginka markaan ku dhufto show margins markaan ku dhufto marka show marginkaas aan ku dhufto waxa ii suurgelinaysaa page marginkeyga ama geesihii inaan isku soo celiyo oo daatadii aan ka keeno aan hal meel isugu keeno insha Allah waxaan sameeynaa marka show marginkaas warqadaada ku ficaysanaysaa marka qaar waxa way daatada qaar cariiri noqonayo ka galayso inta ku aadinaysaa waa qabanaysaa sana u jiiday de kor socod kor u jiidaysaa hatta for example waa kana sana leedahay jida saasa isku celinaysaa hadii tan aad rabto intaad u celinay daadis waxa way show margin marka kali ku siiso ay ku soo bixaysaa tiktas marka saarto show margin tikta ka qaad waa kana hadda malahan ima qaadmayso waa preview mode joogta and this is the zoom way marka soo dhaweynaysa ama yareynaysid way print set aba jiro asigana waan sameyn doonaa laakiin waxa ugu wanaagsan aad ka helaysaa fiijirada ugu badan page layout kaas aad tagaysaa oo ribbonka kore noo saaran page layout marka tagto page margin-ki waa kana orientation page size print area breaks this group ku shaqeynina oo page setup group ah insha Allah page margin page ka waxa waaye okay hadda aan soo qaadanay click on here and then you select the custom margin custom aan ka qaadanayna page margin custom margin for example top au jirsataa lahay 0.75 waxaan ka dhigaynaa 1
bottom ka lefty and right meesha u jirsan lahayd iyadana right ko kale 0.6 lefty raydo 0.6 de right kana 0.6 kadibna okay waa leedahay marka page margin ka okay ba view atagena marka ba view icon intuu isaaran yahay quick access toolbar ka ku jira this is the ba view inshallah waa kana marka inta uu soo jirsaday marka some of my data meeshan ku waayay sida hadda quarter 4 meeshan kuma jiro quarter 3 oo ka eg yahay inta ka soo hartay kana waa inta hoos soo deg 1 cm ruulada hadda meeshan ka maqan hoos markaan fiiriyo page-kayga waa kana asigan intaan oo noqday haday meesha uu ka ahaa 6 page oo ka had wuxuu noqday 14 pages oo noqday uu laba laabmay maxaa keenay column-ka inta ka baxay wuxuu sameeyay kaligiisa page aaday marka datadaas oo dhan saas ugu soo cariiri lahayd ama aad u habayn lahayd ayaa u baahan tahay insha Allah custom margin-ka hadda markaan sameeynayo show margin-kii oo kala soo saaraya si aan u soo celiyo column-ka inta ka maqnaa anoo page-kayga oo margin-kii soo doortay ii taagan tahay inta imaanaya kuwan aan yareynaa marka gudaha column-yadan gaarka ah isku yeelanaya waa kaasaa waduu soo baxay quarter 4 uu imaaday hadda booskiisa aragnaa filaya this is my quarter 4 kana xogaa space waka saasa isugu dheelitiraysaa markaad rabto worksheet kaaga inaad diyaarisid inaad printer gareyso waa cashar muhiim ah kadib close the print by view let's back to orientation orientation waxa waaye warqadda aad wax ku daabacaysid qaabkay ahaanayso landscape and portrait warqadaada inay markaasi ay tahay mid markaasi sidaan u taagan this is waxa waaye portrait la yiraahdaa markay sidaan u taagan tahay markay sidaan ay u jeefto aad qoraalkaaga oo sidaan u soo baxay asigana wuxuu noqonayaa landscape this is the landscape oo noqonaya marka landscape and the portrait kala faahno insha Allah landscape waa tan warqadda sidoo ku cadeynayso landscape hadan ka dhigo qoraalkayga marka waxba iska bedelaya ba view aan dhahay warqadii aan fiirinaya preview maxaa waaye print by view this is waxa waaye markaad printer gareyso sida ay ku soo bixi lahayd waxay ka dhigan tahay adoo printer gareeyay ay ka dhigan tahay qaabkay kugu soo bixi lahayd marka intaad ka fiirsanaysaa waa kana awal maxay yaad 6 page aad hadda maxay samaysay 4 page 10 page samaysay hadda waa ka waxa keenayo portrait ka keenayo landscape ka keenayo awal istaagay ahayd daatada hoos waxba go'ay page marka saasay ku bateen okay waan ka gudbayaa this is the orientation ka sidii hore ugu soo celi portrait ka isticmaal rabaa this is the page size maxaa waaye warqadda size keeda waaye warqadda nooca isticmaalaysid A3 A4 A5 warqadda isticmaalaysid ay ku xiran tahay marka insha Allah envelope mode aad wixii aad ka rabto insha Allah badana A4 waa isticmaalna A4 waa tan marka A4 waa ka dooranaysaa bilowga hore koray jirta A4 A5 A4 waa tan marka A4 maxaa waaye warqadda isticmaalna warqadan saa u yar iyadana waxa waaye tan ka half tahay waa A5 yalilo insha Allah warqadan hadda A4 ay tahay A4 markaan ka dhigo print by view aan dhaha marka inkastoo diyaday tan aysan waxba ku kala duwneen yar moomaan okay waa kana marka warqadayda sidaan ay ugu soo baxday 7 page na waa A4 markaan dhahay okay waxaan dawga hadana waxa leeyahay print by view print area waa muhiim isana this is you set an area you wanted to print waxaad gareynay area rabtid ina markaas aad daabacato warqadaada ay ku soo baxdo daabacadaada for example waxaan rabaa oo kaliya inaan intaan daabaco fahmaysin select gare you highlight marka highlight gareyso kadibna waxaad tagaysaa print area waxa leedahay set print area is set gare set print area leedahay kadib set print area marka dhahdo waxa sameynaysaa marka preview ma way anaga damaysana printerkii waxaan sameynaynaa tusaale si anagoo daabicin oo kale inta warqad daabicin kor waxa la rabaa inaad wixii aad iska jagareyso iska hubiso waatan datadeeda intaas bas ay soo bixiyso waa area aan select gareystay inaan printer gareeyo insha Allah waa one of one way hal page ay ka kooban tahay tiyadaayni 7 8 okay waan fahnaa mala print area marka aad ka qaadayso you select print area then waxa leedahay clear print area clear gare okay qayb kale muhiim ah iyadana waxa waaye qaybtaan qosaysa waa print title aad rabto inaad print gareyso inta ku dhufanay waa qayb muhiim ah iyadana wuxuu ku soo qaadayaa qaybtaan ku keenaya qaybtaan oo page setup waxayna ka kooban tahay
wuxuu leeyahay for waa print area. This is the print area. Print area markuu ku dhahayo area aad rabto inaad daabacatid waay. Waa tii hadda aan soo marnay waa set print area aan dooranayne aad select garaysanaysaa. Tusaale ahaan area hadda aan rabo inaan select gareeyo ama aan daabacda aan rabo halahan aan leedahay waa qabanaysaa iyo highlight. haddii aad haysatana waad qoraysaa. waa arkaysaan halaasaan rabaa inaan print area aan ku sameeyo. This is print titles. Titlada aad rabto inaad print garaysa maxaa waaye rows to be repeated. Rowga aad rabto inay soo laabtaan. rows to be repeated. Rowyada aad rabto inay meesha ku soo laba noqdaan oo mar walba ay ka muuqdaan page walba ay ka muuqdaan ka dooranay. Row hadda ma rabo. These are columns to be repeated. Column ay rabtid inay markaas ay soo noqdaan oo ay ka muuqato marka page walbaba. Column kaan rabaa waxaan dooranayaa column waxaan dooranayaa rowgaan dooranayaa to be repeated ka inay soo laabtaan. This row aan dooranayaa row 1 ka. Row 1 aan dooranayaa inuu ahaado mid repeated oo ii taagan insha Allah. Columns to be repeated ne column kuwana kamid ah A, B, C and D. That's why maraba column inuu soo laabto waan ka soconayaa marka. Okay, haddaad rabto waxaad tagaysaa intaad meel kale aad tagin kuwan kale soo hagaajisan kartaa. Header and footer u sameynaysaa. Headerkana qayb kale ku soo qaadi doonaa waa qaybta ku xigta galina tana idin tusaaya marka hore. Preview aan dhigi karaa meel kale aadin. Preview maxaa waay when printed inaan arko si ku soo bixi lahayd. Marka this is marka 4 page ka kooban tahay. 4 page kan page 1 aan joogaa. Page 1 hadda muxuu leeyahay waa ka muuqaalkiisa page 1. This one waa rowgi aan soo doortay to be repeated inuu ahaado. Areadan waa area aan soo xirtay inay markaas la daabaco 4 page ay noqotay. awal 7 ay ahayd inta kale waxaan soo dhaafay macnaha hali ana aan select gareystay oo ii soo qaadanaya. haddii aan rabo laba magac kaliya inaan soo samaysto print area labadaas magac aan rabo inay ka daabacdo ayaan soo saaranaya insha Allah. waxaa leedahay marka next si aan u arko rowga inuu taagan yahay. waa ujeedaa C aan marayaa way taagan tahay. next aan dhahay G aan hadda marayaa. next page waa J. marka rowga marka kore ama column heading kaas uu ku istaagaya. hadaan daabaco warqadayda marka warqad walba aan rogo way ka soo bixaysaa marka sideeda u taagnaanaysaa marka insha Allah sidaas aad u ogaanaysaan. qaybta kale aan rabo inaan idin tusaa waxay tahay aadka u muhiimsan sidii loo soo gelinayo header and footer. header and footer waayo marka warqadan aan daabacayo waxaa muhiim ah inay ii lahaato page numbers iyo waxyaalahaas inay ii lahaato iyo headers oo la rabo page walba inay ka soo muuqato insha Allah. For example meeshii aan ku laabanayaa print titles. print titles markaan dhaho haddaan rabana waxaan tagi karaa intaan ka dooranaya haddaan rabo insha Allah page setup group waxaan download box kaas aan soo saaraya dialog box. marka waa kana insha Allah waxaan rabaa marka kan sheetkan waan soo sameeyay waa kii hadda aan sameynayna print titles kulli waa sidoodii wali waa ii dooran yihiin. header and footer aan sameynaya. header and footer marka custom aan sameynaya marka custom header markaan dhaho waxa ay soo baxaya calaamadahan ay muuqanaya. calaamadahan maxaa marka calaamadahan waxay u taagan yihiin shaqooyinka aad ka dooran lahayd. For example left section qaybta bidix oo kale waxaa leedahay waxaad ka soo bixisaa ama ay ugu qortaa inta page number oo kale. page number-ka meeshaas geli insert waa page number gelinaysaa meeshaas. haddaan rabana date waxaan gelinayaa insert number of pages inta page date ka gelinaysaa time ka gelinaysaa file name ka gelinaysaa file path meesha filekaas uu kaga jiro computer-ka. file name kan waa kan haddaan rabto file name kan gelinaya hadda maadaama qaybta kore ay tahay. qaybta dhexe marka imaato kale waxa gelinaysaa insha Allah soo qaadina insert time saacadii oo kale gelinaysaa saacadii oo kale soo gelinayna insha Allah ama date ka dheh taariikhdii ku qortay. qaybtan dambe oo right ka ah waxaan rabaa inay iga soo muuqato insha Allah sheet name sheetka magaciisa ka soo baxo kala leedahay insha Allah. kadib okay aan leeyahay marka hadda maxaan sameeyay waa custom header waa kuwana saanay soo baxayaan. sales report date waa kana source data waxa waa sheet name ka waa intii u yaalay sheet name kan waa. custom footer waa the same aydan u sameynaysaa insha Allah. custom footer waxaan rabaa number of pages inta page insert page number leh page number meesha ka soo muuqdo. inta waxaan raacinaa haddaan rabo maxaa lahayd inta imaana qaybtan dhexe waxaan leeyahay page path keys ama meesha oo page kaas uu kaga jiro computer-ka inuu ka soo baxo. intoo kalena waxaan leeyahay inuu ka soo baxo saacadii oo kale time-ka kadibna okay aan leeyahay. okay marka inta joogo preview aan ku sameynaa marka saan u arko waxaan sameeyay sidii ku soo bixi doonaa waa kana marka very good.
this is the header waaye headerkii waa kana marka qaybta hoose ee page-kayga warqadda markay sidaan tahay headerka ciwaanka guud page walba uu ka muuqanaya kan hoosena waa kana next page haddaan dhaho sidoo igu soo baxaya asigana waa kana next page page 3 amara page 4 that's how you adjust it waxaan filayaa in aad aga hesheen insha Allah xasinimada ma fiicna qofka walaalkaaga geersii wana share garay isla markaana subscribe ka naga iloowin insha Allah waxyaabo badan soo wadnaa inaad kala faa'iideysana aad u wanaagsan waxa waaye cid u dhalatay malaha wixii aan gafnayno waxa leeyahay naga raali noqda dad badan oo macallimiin iska jooga laakiin waxaad taqaano qofka walaalkaaga geersiiyana haysato insha Allah ardaydeena insha Allah waxaan filayaa inay ku qanci doonaan wixii su'aalaha insha Allah waa kaas way furan yihiin commentiga noogu soo dhaafa insha Allah yaan la iloobin commentiga wixii markaas aarahdina dalabka idinka askale insha Allah ina idin qancinaan diyaar u nahay waa idin salaamayna maalin wanaagsan insha Allah gacmahana la iska dhaqo cudur iyo balaaya socota Allah naga haayo insha Allah nadaafada lagu dadaalo weysada lagu dadaalo sunnada lagu dadaalo habeenkii la soo kaco in ilaahay inta ummadna Maxamed ilaahay inuu ku badbaadiyo aafadan socota insha Allah ta'ala insha Allah dadkana hala wacyi geliyo waxa loo sheego insha Allah dadkeena waxa way xogaa wacyi gelinta waxa waa diliiraad aad ugu yar hooseysa marka insha Allah waxaan wax jira waay diinteena waxaan ugu horeysay cid ka digta marka insha Allah gaaladii naga badinin insha Allah xilli gaalada la dhihilaa la taagan yahay anaga 1400 sano ka hor aan la sheegay waxaan waa idin salaamayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh